xaaladda caafimaad ee hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa lagu waramayaa inay tahay mid miyir beel ah kadib markii qalliin guuldareystay looga sameeyay wadnaha sida laga soo xigtay dhaqaatiirtii daaweysay hogaamiyahaasi. inkastoo wararka qaar ay sheegayaan inuu hogaamiyahaasi dhintay ayaa haddana waxaa la sheegayaa in uu nool yahay laakiin xaaladiisu ay tahay mid halis ah. wargeyska toddobaadlaha ah ee dalka Japan oo lagu magacaabo Shukan Gandia ayaa wariyay in xubin ka mid ah kooxaha caafimaadka Shiinaha ay u direen Kuuriyada Waqooyi oo xaaladda Kim u sharaxay tafaftiraha sare ee wargeyska Condom Dizaku. dhakhtarkan ayaa waxa uu sheegay in intii lagu guda jiray booqasho uu horaantii bishan ku tagay baadiyaha uu Kim wadnaha qabsaday kadibna uu dhulka ku dhacay. dhakhtar weheliye Kim ayaa durba siiyay neef kadibna waxaa loola cararay qaybta xaaladda degdega ah ee isbitaalka agdhow halkaas oo looga sameeyay qalliin dhinaca wadnaha ah. kooxda caafimaadka ayaa waxay rumaysan yihiin in qalliinku ahaa mid fudud balse daahitaan dhacay uu sababay in Kim Jong Un uu galo xaalad halis ah. hogaamiyaha nabadda dhakhtarkan oo si hadlaya ayaa waxa uu yiri Kim uu soo jeedaa wuuna ku eegayaa balse wax dareen ah ma lahan. Shiinaha ayaa markaas kadib koox caafimaad waxay u direen Kuuriyada Waqooyi si ay u tala siiyaan sida looga gudbi karo ama looga daaweyn karo xanuunkan dhaqaatiirta la tacaalisa. wafdi ka socda qaybta xiriirka caalamiga ah ee xisbiga xukuumadda Shiinaha ayaa sidoo kale Khamiistii waxa ay tageen Beijing iyaga oo aaday Kuuriyada Waqooyi sida wargeyska Reuters uu ka soo xogtay laba qof oo xog ogaal ah. arrintan ayaa imaanaysa iyadoo wargeyska fadhigiisu yahay Seoul ee lagu magacaabo Daily NK uu horaantii toddobaadkan wariyay in Kim Jong Un uu ka soo kamanayo qalliin wadnaha looga sameeyay 12 bishii Abriil. Kim oo la rumaysan yahay inuu 36 jir yahay ayaa muddo dhowr toddobaad ah ka soo muuqan warbaahinta dowladda taasi oo shaki gelisay xaaladiisa caafimaad. inkasta oo Kuuriyada Waqooyi weli aysan shaacin cidda bedeli doonta haddii uu geeriyoodo ayaa haddana khubarada waxa ay rumaysan yihiin in walaashiisa lagu magacaabo Kim Yoo-young ay noqon doonto hogaamiyaha cusub ee Kuuriyada Waqooyi ugu yaraan muddada xaaladda kala guurka ah. khubaro kale ayaa sidoo kale waxa ay rumaysan yihiin in Kuuriyada Waqooyi ay si wadajir ah u maamuli doonaan golaha sare ee dalkaas si la mid ah midowgii Soviet kadib markii uu geeriyooday Joseph Stalin.